ma fursad la'aan baa ku haysa mise hami xumaa ku haysa? Do you have a lack of opportunity or lack of ambition? muxuu yahay dhibaatada ku haysataa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يروان السلام يا ميل كستود مسج كنا كدقي سنة سنة وحن إنك جمع هاد قلنا يا دقي ست كنا وحن إنك عد سنة يا سو مسج كانوا وجارة ضد آدي آدو فربنا please subscribe to channels goal كانوا حويه إن أمبرارو جنون بالشدينا سيدي النقطة عند براروكسن وأدونك يوعي جسد مرور بلا صعدة أدبنا إني سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليال وأنا سلامي يا ميل كسودو كجوكتان ولكن فرحان ومالين السنينة ومالين كانوا كهل جنة جناسة waxa ugu muhiimsan oo qofka bilowaadanka meel kasto adduunka joogo uu ku ogaan kara ama dibka uu ku jiro uga bixi kara waa inuu su'aal isweydiiyo. You should ask yourself these questions. Waa inaad su'aalahan ama su'aalaad isweydiiso si aad answerka ama jawaabta uga hesho naftaada. Su'aasha aan maanta isweydiinayna waxa waaye meel kasta ama stage kasta nolosha ka joogto ma fursad la'aan baa ku haysa mise hami xumaa ku haysa? Do you have a lack of opportunity or lack of ambition? muxuu yahay dhibaatada ku haysataa? haddii aad u malaynaysa inay fursad la'aan ku hayso inta badani naftaada run umaada sheegin. fursaduhu adduunku waxay ag yaalaan ama ay ag dhooban yihiin qof kasta oo ibni aadana condition kasta ama xaalad kasta uu ku jiro. xaaladda aad ku jirto aad isleedahay ma lahan xal waxaa agtaada yaala oo aad u baahan tahay inaad ka raadiso fursad. markii noloshayda ay ugu dhibka badnayd oon xaaqin gadaayo door to door aan gadaayo waxaan bartay fursadaha ugu fiican ee nolosha ah ee ah inaan inta wax gado aan lacag ku bedesho oo ahayd midda i anfacday kadib aan mar walba oo noloshayda laakiin waxaan ogaaday oo aan helay fursad nololeed oo ahayd markay ugu dhibka badnaa oo nolosha aan joogay. haddaba qofka maxaa u diida inuu fursadda arko? maxaa u diida qofka inuu fursadda arko inuu ogaado opportunity-ga iyo fursaddu waxaa ku dhex jira oo la yimaada challenge ama caqabadaha la yimaada. inta badan caqabadahaas qiiqooda yaa waxa ay ka qarinayaan in aadan arkin ama aysan ku sahlanaanin in aad hesho ama aad ka dhexesho opportunity. waana normal. wax kasta oo fiican waxaa la yimaada waxaan fiicnayn. dadka dahabka soo saaraya waxa ay dhulka qodaan oo wasaq badan iyo dheerti badan u qodaan inay dahab helaan. qof kasta oo raba maalinka inuu qoraxda helo waa inuu dulqaadkeeda u leeyahay inuu habeenka joogo. haddaa rabto nal inaad shidato ama faynuus ama dab shidato waa inaad qiiqa dulqaad u leedahay. in badan oo anaga naga mid ah qiiqaas ama wasaqdaas ayaa waxa ay naga qarisaa ama noo diidaa inaan aragno opportunity-gii oo nagu noqota caqabad aanan uga bixi karin. haddaba sida fursadda loo helo caqabada looga saaro waa inaad fahansan tahay hamigaaga in aad ku darsato in aad leedahay qiimeyn nafeed ama waxa la yiraahdo value. qofuna ma badin karo 24 hours. qof kastoo adduunka jooga wuxuu haystaa 24 saac laakiin waxaad u baahan tahay inaad samayso arrimahan ayada. do this waxay ku noqonaysaa easy inay noloshu ay ku fududaato. maxaa waaye you add yourself value. naftaada waxaad ku daraysaa qiimeyn. haddaba waxyaabaha suuqa lagu gado ama waxyaabaha suuqa la keeno way kala qiimo duwan yihiin. waxaana qiimahaasu ay ka bilowdaan waxaasu waxtarka ay ummadda u leeyihiin. value-ga aad suuqa keenaysa ama qiimaha aad suuqa ku imaanayso ayaa waxa uu ku sahlayaa ama uu ka mid dhigayaa in aad lahaato ambition-kaaga inuu qaybo ku lahaado. tusaale ahaan waxaad tagtay interview, waxaad tagtay inaad ganacsi bilaabato, waxaad tagtay inaad waxa samayso. dhammaantood waxaas wax adiga kugu jira waay. laakiin sida aad naftaada u qiimayso ama aad naftaada qiimaheeda aad dadka hor dhigto baa waxa ay kalifaysaa inay waxa shaqeeyaan iyo inaysan waxa shaqeynin. waa inaad fahansan tahay waaye inaad arintaasi samayso. waxa ugu fiican marka oo qofka laga rabaa inuu sameeyo oo uu qiimaha ku sameyn kara inuu fahmo problem kasta ama dhibaato kasta waxa la socota in opportunity aad u baahan tahay inaad noqoto qof ku celcelis leh oo dadnimo leh. aan mar labaad cashirkeena maanta noogu celiyo si aad u fahanto.
waxa weeye you shall ask yourself these questions waa inaad adiga isweydiisaa ma fursad la'aan ku haysa mise hami xuma ku haysa ma lack of opportunity baa jira mise lack of ambition baa jira inta badan dadka waxaa haysta ambitious xumo maxaa yeelay opportunity ama faa'iidadii waxaysan ka dhex arki karin qiiqa la imaanay dhib kasta wuxuu qabaa faa'iido laga raba inaad fahanto ganacsiga iyo nolosha inaad ka fahanto fursadda caqabadaha waxaad uga bixi kartaa inaad naftaada ku darto value ama qiimo ku darto labada waxyaalood ama saddexda waxyaalood qofku value naftiisa ugu dari karo waxaa kamid ah in uu wax akhriyo in aad wax akhriso oo aad akhriso buugta akhriso naftaada qiimaad ku daraysaa in aad wax dhageysato dad ka sareeya aad wax ka dhageysato naftaada qiimaad ku daraysaa in aad mentorship hesho ama aad hesho qofku guide gareeya ama qofku tuso wadada naftaada qiimaad ku daraysaa walaakiin waa inaad naftaada qiimo ku dartaa maxaa yeelay timeka 24 saac isma bedelayo waana in aad ku celcelisaa oo aad fahantaa naftaadu inaysan give up garaynin oo aadan noqonin average person oo waxa marka uu isku dayo ka carara oo aad ogsoon tahay dhibaato kasta opportunity baa la socota dhamaanteen aan fahano aan sameeyno arimahan si ay noogu sahlanaadaan in aan ka fahano meel kasto nolosha ka joogno in ay jiraan chance ay opportunity aan ka faa'iideysan karno xataa marka aad dhibka ugu badan ku jirto insha Allah taala dilaad aad baan ni salaam ya walaal